بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مدينين مروين بكسو لوادا ورالكي عالمك إنه قصو قالي هل كان وايدا عدا مجرنك صوت حيس سو لوادا مدينين مروين با السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مدني مربع سولو هذا حاول موضوع إنه حكوساب سنة إنسان هراء وصغر شاقني وحوي يسعودالكي يسافردي لو سفرايي سوماليا ودك الاسكون انشر أما السوماليلان جمهورية السوماليلان أما السوماليا با أي حكويني إسكا بدلين حاسو بريها بمران كيدو تاقناه يضو شعب كينا آد مدد إنه سوق علي خلخل آد فربضان اسبيشالي ama khaasatan dadka ka dhoofiyey qurbaha iyadoo dowladda Soomaaliya ay soo rogtay xukun ah in qof aan fiisa aan sidan mooyaane aan qof kale wadanka aan ka degi karin iyadoo aan kala soocin wax baasaboor adduunka hadda markaynu eegno mawduucan aynu ka hadalno dadka qaar baa waxa baasaboorka ama baasaboor ay dowladda leedahay ama baasaboorku doono qofka hadduu doono haysatee waxay kaas horta markastaba baasaboorka waxa xukumo waxa weeye dowladda markaa ama waddanka loo safrayo ayaa xukunkeeda haya baasaboor markaan leenahay baasaboorku waxa weeye waa ID waa aqoonsi laakiin fiisa waa gooni matalan qofku oran karaa Mareykanka oo kale ama oran karaa dowladda hiblaayo oo kale waddankeega on the arrival bay ku qaadanaysaa oo fiisaa waxay markay timaadaa waan ugu dhifanaynaa way oran kartaa dowladda caankaas baasaboorreeda ama waddanka caankaasi markuu mataqaana noo imanayo fiisihiis mataqaana fiisa online buu kusoo qaadanayaa ama safaaraddu kusoo qaadanayaa jooska dowladda leh markaa meesha ku mataqaana xukumaysa ayaa jooska iskale marka maanta Soomaaliya ma kala reebanayo baasaboorada mana oran ka Yurubiyaanka ama kan Mareykan ama kan Afrika mid kasta wada laakiin waxay soo rogtay systemka la yiraahdo e-visa ama electronic visa wax la yiraahdo ee online lagu qaato kaasoo waliba lacag aad kula baxayso $60 marka halkaan waxaad moodaa dhaqaale ahaan inay kulley iyadana xagga laftigeeda ay wax ka soo gelayaan laakiin markaynu xagga shacab ka hadalno ama aynu ka hadalno hawsha tan iyo sida loo saari karo ama sida looga badbaadi karo ama sida mataqaanaa ugu habboon aynu ka hadalno ama aynu dadka fahansiino waxa fiican wixii horta inay shacabku marka aynu sheegayno shacabkeenu meel kasta ku noolaadeen waa inay horta fahmaan waxa ay yihiin iyo qaabka ay yihiin iyo dowladdu sida u gelisay iyo sida tan looga doodayo waliba saameyn weyn wax ku leedahay Soomaaliland bay ku yeelatay oo كل دولة way ka hadashay laakiin qaabka ay uga hadashayna waa iyada laftigeedana waa ka hadlaynaa marka horta ay fiisaha dowladda markaa dalbatay ama Soomaaliya aad mid kala ahaatay markaan guud ka hadalno dowladda Soomaaliya hadii dalbatay oo tariif fiisa waa in lagu galaa fiisahaasu wuxuu saameeyaa dhul badan marka hore sababta waxay u wargelinaysaa wax allaale wixii shirkadda duulimaada ay hay'adaha ay khusayso ee dowladdu dokumentigan ama fiisahan inay soo rogtay ayaa la gelinayaa waliba hay'adaha ay gelinayso ee ay la socodsiinayso waa hay'adaha socdaalka loogu talagalay caalamka ka diiwaan gashan ama xogta heli kara taasoo ay dadka waxa u dhaxay markaa shirkadaha soo dhaxayaan baasinjarka iyo waddanka la tagay inta hay'adaha la yiraahdo ICA oo kale iyo IATA iyo notification kuwaasoo kale ay dowladdu waxay u gudbinaysaa xogta rasmiga ah marka ICA ooda u gudbiso oo ah International Civil Aviation Organization iyo IATA oo ah International Airways Transportation Association marka inta ay u gudbiso oo xogta ay helaan iyaguna waxay sameynayaan waxay gelinayaan wax loo yaqaano database-kooda
database-ka markay geliso hay-adahaas ay geliyaan macnaha diyaaradda caalamka oo dhan ay u baxaayeen marka waddankaas Soomaaliya xogtaas way hayaan xogta iyagu markay helaanna isla markiiba waxay weydiinayaan baasanjarka ama Soomaali ha ahaado baasaboor European haysto ama Mareykan haysto ama Soomaali haysto kii allaal ku doon haystee marka iyagu waxa ku khasbayeen amarkaas wuxuu bixinayaa database-ka ku jira iyadana ay la geliyay systemka TIMTEC baa la yiraahdaa system la geliyay IAT uu wargeliyay oo shirkadaha safaraya oo dhan ay hayaan xogtaas iyagoo haya ay iyaguna waxay ku soo jeesaan marka rakaabka ama baasinjarka waxay weydiinayaan waxa loo yaqaano e-visa halka marka iska xirmaan ayaa haddana dawladdu waxay sii wargelinaysaa wasaaradda arrimaha gudaha waliba wasaaradda qaybta socdaalka ee immigration ay ayagana xogtii la siinayaan oo la leeyahay qof aan haysanin e-visa aan sidanin waddanka ma soo geli karo marka warqadahaas markay shirkadaha hay'aduhu helaan ee wasaaradda arrimaha gudaha hesho ee wasaaradda immigration laanta socdaalku ay hesho ayuu horta saas ku hirgeliyaan marka fiisuhu horta qaabkaas u shaqeynaya marka haddaba halkan ay shacabku uu ka khalkhalsan yahay waxa weeye laba arrimood way noqonayaan caqabad horta xaggan hadda ka timi Somaliland oo arkayay warqada dawladdu soo saartay oo sheegaysa in uu fiisuhoodu iyaga yahay on the arrive oo laga siinayo airportka oo aanay ixtiraafsanayn ama aanay aqbali doonin e-visa taa anigu waxaan qabaa fikrad ka duwan oo websiyada public announce la yiraahdo saan u arkay anigu warqada tan lama gelinin ama xogta tan lama wadaagin hay'adaha ay khusayso waayo hay'adaha aynu soo sheegnay ee marka hore xogta la siiyey unba waxa kan xaggan loo gudbin karaa xaggan laga saari karaa lagana saari karaa IAT ay ugu horeyso notificationkeeda kuwaas ayaa mataqaanaa ka saari kara waa inay marka dawladdu la xiriidhaa horta hay'adaha ku shaqo leh laakiin warqad la qoray oo caadiya ama uu wasiir soo qoray ma wax saameyna ama infactifa ma keenayso marka loo arrimood culayskeeda waa leeyahay waa mid horta waa dhaqaalihii oo $60 iyo markii hore dadka laga qaadi jiray oo airportada laga qaadi jiray iyo $60 oo fiisi ah halkaas waxa weeye lacag badan baa marka shacabkii fuulaysa marka xaggan kale ee sharciyan marka la eegona way adkaanaysaa oo baasinjarkii waxa uu meesha uu ka saari karo xogta tan waxa weeye waa ama dawladda Soomaaliya ha ahaato ama Soomaaliya ha ahaato codda uun marka uun meeshan gelisay ama ay isla ogol yihiin ba xogtanna dib uga saari karta waayo hay'adan IATA waxa weeye xogtii la siiyo inuu database-keeda gelinaysa oo amarkiin bay ay raacayaan ama kuwan ha geliyeen ama kuwa kale ha geliyeen marka mawduucaas ayaynu maanta ka hadlaynaa mawduucaas aynu mataqaanaa dadka fahansiinaynaa mawduucan waa mawduuc aad u muhiim u ah dadka safrayaana waa inay fahmaan ujeedka waa inay fahmaan intaanay airportka tegin waxa kan ay sii baadhaan waa inay la hadlaan shirkadaha ugu dhow waa inay la hadlaan shirkadaha ay tikidhada ka goosteen waa inay macluumaadka online-ba kulli la soo gelinayaa waad arki doontaan waa in ay marka hore iska hubiyaan intaanu qofku goosan tigidhka intaanu airportka tegin waa inuu haystaa macluumaadka la-aanta haddaanu haysan waxaa imanaysa qofku inuu markaa uu sida dad badan ay ku dhacday airportka laga soo celiyo ama uu mataqaana uu tigidhkiisa ka khasaaroobo marka channelkeennii soo dalxiis maanta mawduuciisa intaasuu ku egyahay mudaniye marweynba channelka subscriptiga iyo leegta iyo sheerka inoogu xoojiya wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu